Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal idil ahaantiinba kusoo dhawaada kanaalka xogta geeska oo aad ka heli doontaan warar iyo warbixino xaqiiqada ku salaysan. Haddaba waxaan idinka warrami doonaa xaaladda Sharma Boy iyo sida ay tahay haatan. Haddaba xaaladda Sharma Boy waxaa la sheegay inuu gaari kula qalibmay meel u dhow Garowe islamarkaana duleedka Garowe oo la yidhaahdo Laac Dheere iyagoo ka soo socda ayuu gaarigu qalibmay. Gaariga markaasi waxaa darawal ka ahaa alfanaan Sharma Boy oo waday, inkastoo dadka qaar ay sheegeen in qof kale uu waday islamarkaasina la shirqoolay Sharma Boy oo cid gaar ah ay u soo dirsatay, balse arrintaasi waa been oo propaganda baraha bulshada lagu faafinayo, balse isaga ayaa ka ahaa darawal oo waday gaariga. Halkaasi waxaa wax ku noqday dhowr qof oo isaga la socday islamarkaasina dadkii magaalada ku soo dhaweeyay. Waxaa sidoo kale waxyeello ka soo gaadhay oo dhintay hal qof oo gabadh ahaa, Shayma la dhaho, magaceedana uu ahaa Shayma. Haddaba waxaa khasaare dhimasho jira inantaasoo keliya, isagana waxaa soo gaadhay dhaawac fudud oo waa uu ka kici karaa maalmaha soo socda, balse waxaa lagu muransan yahay inuu Maslax Mideeye la socday iyo in kale. Haddaba taa haddii aan idin xaqiijiyo, Maslax Mideeye iyo dhowr kale oo la socday waxay ku sugnaayeen isla gurigii ay deganaayeen ee hoteelkii, oo iyagu ma aysan soo raacin oo way ka hadheen. Haddaba daawadayaal waxaan ka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe saartaan islamarkaasina aad sii share garaysaan haddaad awoodaan. Salaam.